بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. awoodda garaadku waa karaanka iyo awoodda uu qofku u leeyahay heerka ay gaarsiisan yihiin la falgalka oo nolosha sida ay tahay ula falgalo kalsoonida gudihiisa iyo cidda ku xeeranba heerka uu leeyahay samirka iyo dulqaadka uu leeyahay marka ay culeysyada noloshu soo abaaraan hawl marka uu gacan qaado oo sida ugu qorxoon isugu dayo inuu u qabto iyo dhinacyada kale ee la midka ah marka ay noqoto muuqaalka guud ee qofka inuu taag daran yahay iyo inuu awood leeyahay dusha ayaa laga garan karaa balse garaadka iyo caqliga qofka way adag tahay in sidaas loo qiyaasaa xitaa qofku isagu inuu isqiyaaso way ku adag tahay caadooyinka noloshan inta la dhaqan yahay la sameeyo qaarkood waxay naga dhigayaan kuwo taag daran garaad ahaan halka qaar kalena ay maankeenna xoojinayaan si aynu qodobkaas uga bogannana aynu isla eegno dhowr caado oo garaadkaaga xoojinaya haddii ay meesha ka baxaanna daciifinaya oo caqli ahaan qof taag daran kaa dhigaya waa mar kale iyo ayaan jaamac nuux ku soo dhowaada mawduuca kow inaad yeelato garaad positive ah ama dhanka wanaagsan wax ka eega micnaha ma aha inaad nolosha oo dhanba indho wanaagsan ku eegto ama wax walba aad indho qurxoon ku eegto xataa haddii ay fool xun yihiin aad adigu qurxiso waa sida ay u badan tahay wixii aanay xumaantoodu badheedh cad ahayn ama wixii caadi ah ee sida dabiiciga ah u dhacay ee aad indho wanaagsan ku eegto ama aad fikir wanaagsan ka qaadato tusaale ahaan marka aad roobka da'aya karahsato ee aad hoosta ka dhibsato adigoo u arka xaragadaada inuu u dan leeyahay ama danta aad suuqa ka lahayd uu kaa baajinayo waxa uu garaadkaagu u fakarayaa si negatif ah ama xun halkii uu caqligaagu ku mashquuli lahaa arrimo mudan in lagu mashquulo sida qofka aad u socotaa agtaada qiimaha uu ku leeyahay waxaad ka soo wada hadli doontaan waxaad ku kala iman doontaan iyo markaad hawshaas ka soo dhammaato wixii aad qaban lahayd iyo noloshaada kale waxyaabihii muhiimka kuu ahaa inaad ku mashquusho laakiin waxa kaa dhex guuxaya haddii uu noqdo roobkaas shuuxaya oo aad dhibcihiisa mid u tirinayso oo aad isweydiinayso goormuu qaadayaa ficilkaasi wuxuu fikirkaaga iyo caqligaaga ka dhigayaa mid meelaha yaryar ee hoose ku mashquula oo waqti geliya badanka halkii ay ahayd inuu fikirkaagu waxyaabaha mudan in lagu mashquulo ku foognaado taasina waa caado xun oo garaadkaaga iyo caqligaaga daciifinaysa laba marka ay wax qaldamaan ama culays nololeed uu ku soo fuulo sidee ayaad ula dhaqantaa marka aad wax yar jirdiido ama arrin aad ku tala gashay uu sidii aad u qorshaysay u dhici waayo haddii aad sidii ilmo dhalaan ah cadho ismadax marto oo aad cagaha dhulka ku garaacdo oo aad ka soo qaado in maalinkaas uu qabar kugu habsaday waxa ay muujinaysaa inuu garaadkaagu daciif yahay oo uu taag daran yahay waxaan macno buuran samaynayna uu ku mashquulayo waxa uu caqligaaga ama garaadkaagu ilowsan yahay in noloshan wax mar walba sida aynu doonayno u dhacaya aanu jirin noloshana aynu inagu qorshaha uun leenahay ee aynaan qadarka lahayn marka wax sida aynu u qorshaynay ay u dhici waayaanna halka qofka garaadkiisu uu taagta daran yahay uu cadho iyo ciil iyo canaan ku mashquulayo qofka garaadkiisu xoogan yahay waxa uu dhaqaaqaa sidii uu habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan u xallin lahaa arrinka ama qorshihii uu ku bedeli lahaa ee kaas u labaynayay uu ugu dhaqaaqi lahaa ama uu kaas isku dayo kale ugu samayn lahaa haddii ay wuxuba u suuroobi waayaanna uu noloshiisa kale ugu foofi lahaa haddaba caadadaas ah iscaanaanashada ee waxyaabaha ka baxsan karaanka qofka ee aanad adigu wax ka beddelkooda awood u lahayn waxay muujinayaan taagdarro iyo daciifnimo dhanka garaadka ah halka in sida ay tahay lagu aqbalo maadaama aan waxba laga qaban karaynin ay muujinayso awood iyo xoogganaan uu qofkaas garaadkiisu karaan weyn u leeyahay oo waxaaba jirta murti mug weyn oo tidhaahda intii aad mugdiga u caayi lahayd isku day inaad adigu ileystarto 3 iswaafajinta caqliga iyo caadifada caqligu waa maareeyaha iyo maamulaha nolosheenna mar walbana waxa uu xooga saaraa inuu ku dadaalo inaynu wax u qabsanno sida ay danteenu ku jirto halka ay caadifadu iyaduna hab maamulka nolosheenna qayb ka tahay balse ay ku dadaasho hadba wixii dareen iyo shucuur la xidhiidha sida jacayl nacayb iyo wixii la mid ah ee shucuur la dareemo ah
markasta oo qofku labadaas waa caqliga iyo caadifada oo mid gaar ah u go'o oo ama qof caqli badan oo heerka caqligiisa iyo garaadkiisu sareeyo noqdo ama uu qof caadifi ah oo heerka caadifadiisu maamusho isaga uu noqdo waxay muujinaysaa inuu garaad ahaan taag daran yahay tusaale haddii uu qofku caqli badan yahay waxa uu noqonayaa kaliya danaysta ka fakara waxa isaga dantu ugu jirto oo aan dareen caadifadeed gacaltooyo naxariis iyo hurid midna lahayn qof kasta oo ay wax ka dhaxeeyaanna sida dulinka ugu nool halka marka uu noqdo caadifi uu dantiisa iyo waxa uu gaarka ah oo dhanba dayacayo oo xiriirka dadka kala dhaxeeya xoojintiisa iyo inuu dad iyo dunyaba waxa uu hayo u huro cimrigiisa ku qaadanayo mar walbana uu niyad jab iyo qalbi xanuun kala kulmayo sida awgeed inuu qofku caqligiisa iyo caadifadiisa isu dheelitiro oo mid walba inta kaga haboon uu ka adeegsada waa astaan muujinaysa inuu garaad ahaan xoogan yahay in midkood uu ka kale ka adkaadaana waa inuu qofkaasi garaad ahaan u taag daran yahay 4 fakarka aan ficilka lahayn sida ay badiba bulshadeenu caanka ku tahay qofku inuu waxuun niyeysto waxuun ka fakaro maskaxda uu ka shaqaysiiyo boqolaal qorshe uu dejiyo oo uu khayaal badan sawirto haddana aanu waxa soo dhan mid qudha fulani waxay muujinaysaa inuu garaadkiisu taag daran yahay oo sidee ayuu u taag daran yahay sawka waxaan oo dhan sawiranaya taag darrada garaadku kuma eka inuu fakari waayo ee fakar bilaa ficila marka aad ku sifaysan tahay ee maalin kasta ama toddobaad kasta aad qorshe dejiso haddana qorshahaasi fuli waayo iyadoo garaadkaagana waqti iyo fakar badan uu kaga baxay waxay keenaysaa inuu niyad hoose dareemo maankaagu qorshaha dambe marka uu wadana uu hoosta ka dareemo inaanay kullayba fuleen qorshe walbana uu dejiyo isagoo ka sii niyad jabsan fulitaankiisa taasina waa taag darro dhanka garaadka ah oo niyad jabkaas hoosta kaga lamaani nolosha kale oo dhanna wuu u gudbayaa ma aha micnaheedu wax kasta oo aad ku fakarto oo aad qorshayso fuli oo arrimo badan oo karaankeenna ka baxsan way jiraan waxyaabo badan oo aan inoo fulayninna way jiraan si xataa isku daygu waasad inaad waxaas u dhaqaaqdo oo aad dhan walba ka marto oo uu fuli waayaa ma aha fashilaad ee waa qadar balse waxa fashilaada inaanad waxbaba isku dayin 5 xiriirka aad la samaynayso dadku waxa uu muujinayaa awoodda garaadkaaga iyo daciifnimadiisa marka uu qof kastaba xiriir la sameeyo cid kasta oo isbartaanba uu nafta duldhigo waqti iyo dadaalna kulankooda sheekaysigooda iyo waxa ka dhaxaynaya uu ku bixiyo waxay muujinaysaa inuu qofkani garaad ahaan taag daran yahay oo aanu hayn wuxuu waqtigiisa ku bixiyo wuxuu dartii u halgamo oo u dadaalo haddii aanu hayna aanu xataa qorshaysan karin hadiiba uu qorshaystana sida qofkaas aynu soo sheegnay uu yahay oo aanu fulin karin amaba aanu isku dayaynin inuu fuliyo taasina waxay keenaysaa inuu fashilkiisaas iyo noloshiisaas maran ee wuxuu ku mashquulo aanu garanayn uu ku buuxiyo oo waqtigiisa ku dilo oo isku dhaafiyo inuu asxaab badan samaysto inuu dad badan xiriir la wadaago iyo inuu mar walba cid uu la sheekaysto oo marka ay isu yimaadaanna uu la sheekaysto marka ay kala tagaanna uu taleefanka qabsado ama uu 9kaba Facebook dhex fadhiyo waxa soo dhami waxay muujinayaan taag darro caqliyeed inay qofkaas haysato dhanka kale qofka engegan ee uu qalbigu dhagaxoobay ee aan cidnaba xiriirka la lahayn ee gooni daaqa ah ee xataa dadkooda ka wardoonin kaasna waxa haysata taag darro dhanka garaadka ah ha ahaato inuu dadka ka aamin baxay oo cid walba xumaan ama cuqdad u hayo ama inaanu kalsooni lahayn oo qalbigu engegay oo bilaa naxariis noqday ama naxariistii iyo dabacsanidii ay ka dhamaadeen oo qof caqli badan oo mitid ah noqday qodobkaana weynagii hore u soo xusnay qofka ehelkiisa iyo asxaabtiisa labadaba inta kooban kaga xidhan ee ehelkiisa dhowdhow xiriirka wanaagsan la leh asxaabtiisa dhowdhowna sidoo kale xiriirka fiican la leh dadkana inta dhowr saaxiib oo isku haleyn kara ka xisho uu iyagoo in xoog saaro oo waqti la qaato oo wax walba uu huro garabkiisa uu ka dayo marka uu u baahdo taasi waxay muujinaysaa inuu garaad ahaan qofkaasi dhisan yahay oo caqligiisa iyo caadifadiisuna ay isu dheeli tiran yihiin noloshana uu kaalinta kaga soo hagaagta uu ka qabsanayo 6 inaad ka warwarto ama ayaad ku dhibaan oo aad ku mashquusho waxay dadka kale ka sheegayaan
haa waa run qof nool ayaa tahay oo hadalka dadku wuu ku dhibayaa nabigeennii suubanaa nabadgelyo naxariisi korkiisa ha ahaatee ayuu ilaahay ku lahaa waanu ognahay inay laabtaada ciriiri gelinayaan oo aad dhibsanayso waxa ay odhanayaan ee rabbigaa u tasbiixso oo salaada iyo sujuudda xijiso haddana sidaasoo ay tahay haddii tallaabo kasta oo aad noloshaada qaadaysa ay noqoto mid aad ku raali gelinayso dadka kale ama ugu yaraan aad indhahooda iskaga jeedinayso sida inaad dharka u xidhato sida ay dadku doonayaan ama aad isleedahay way kugu ammaanayaan inaad u socoto timaha u jarato u hadasho oo wax kasta oo noloshaada aad samaynayso aad uga shidaal qaadato sida aad isleedahay dadka ayaa kugu ammaanaya ama hadalkooda waad kaga nabadgelaysaa waxaad tahay qof garaad ahaan faashil ah oo aad u taag daran sidoo kalena dadka kama helaysid waxa aad ka doonayso oo kolleyba xamasho iyo hadal xun lagaa dayn maayo adiguna naftaadii waa adigaa kadeedaya ee kalsooni darrada hayse ay gaadhsiisay inaad wax walba u samayso waxay dadku ku odhanayaan qof kasta oo ilaahay abuuray waxa uu leeyahay shakhsiyad isaga u gaara waa qof khaasa oo si gaar ah u abuuran haddii aad intaa fahanto oo sida ay noloshaadu kuugu hagaagayso adduunkaaga iyo aakhiradaadana aad isugu dheelitiri karayso aad u dhaqanto waxaad noqonaysaa qof garaad ahaan xooggan balse inta qof hal mar ku arkay oo ku dhaafay oo laga yaabo inaanad noloshaadaba dib u arag aad isleedahay indhihiisa iska dhis ama hadalkiisa ka nabadgal garaadkaagu kalsooni waa ka eber waxaana ku haysa taagdarro ee ogow ugu dambayntii talooyinka cilmi nafsiga la xidhiidha in la sheegaa way fududahay in la dhagaystaana way fududahay in la aqbalaana sidoo kale balse waxa wax walba ka adag in la fuliyo taasina waa qof iyo karaankii aad ba u mahadsantihiin wassalaamu calaykum